si aad la socotaan waxaan casuumaad rasmi ah ka helnay madaxweynaha dalka Masar Cabdilfataax Siisi uu halkaas si sharaf leh oo wanaagsan oo heer sare ah uu noogu soo dhaweeyay aniga iyo wafdigeyga taas oo ka turjumaysa xiriirka qotada dheer ee labada dal ee lahaayeen waxyaabo badan yaan ka wada hadalnay ay ugu horeyso kow in aan iskaashano aan wada shaqeyno taas oo ku dhisan is-ixtiraam iyo istixgelin waxaan kaloo ka wada hadalnay sidii ay nooga caawin lahaayeen dhismaha iyo tayeenta ciidanka booliiska hadday noqoto qalabeyntooda iyo tababarkooda hadda waxay noo tababarayaan 15 leyli saraakiilah insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan dirno kuwa badan sababtoo oo ahna sidaad la socotaan waxaan howl adag aan ugu jirnaa xasilinta magaalada Muqdisho iyo guud ahaan inta ay joogaan argagixisada dadka dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ku haya waxaan ka wada hadalnay sidii aan u horumarin lahayn arrimaha dhaqaalaha maalgelinta waxay daneynayaan inay maalgashadaan beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga iyo inaan horumarino aan kobcino labada dal ganacsiga iyo trade-ka ka dhex jira waxaan ka wada hadalnay isu socodka labada dad waalaha ah aan yareyno dhibaatooyinka lagu qabo fiisooyinka iyadana wada hadalkaasi meel fiican ayuu noo marayaa waxaan kale oo aan boqosho ugu tagnay jaamacadda weyn Al-Azhar oo ah jaamacadihii ugu da'da weynaa culumaha diinta halkaas oo iyagana aan kala hadalnay sidii aan kor ugu qaadi lahayn deeqaha waxbarasho ee na siiyaan ballan qaadeen hadda waxay bixiyaan 30 deeq waxay ballan qaadeen inay gaarsiin doonaan 70 hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan ka wada hadalnay sidii aan u sameyn lahayn aqoon isweydaarsi culumadooda halkan u imaan lahaayeen oo culumadeena iyagu isku aqoon weydaarsan lahaayeen sidii looga hortagi lahaa xag jirka sida qaabka daran ay u fasireen diinteennu waa diin wanaagsan laakiin sida qolooyinkan al-shabaab ay u fasireen waa si runtii ceeb iyo foolxumo ku ah diinteenna marka inaan iska kaashano dadka inaan ku wacyigelinno diinteennu inay tahay diin nabadeed oo aysan ahayn diin ummadda lagu laayo ama hantida lagu burburiyo waxaa kale oo aan ka wada hadalnay inay halkan u soo diraan culumo annaguna aan u dirno qaahira culumo aan u dirno iyo inaan halkan uga sameyno iskuullo ay wax ku baraan dhalinyarada Soomaaliyeed halkaasna runtii ay ka siiyaan wax alla wixii ah aqoona dhanka diinta ay ka siiyaan ummadda Soomaaliyeed dhanka waxbarashada oo aan kala hadalnay dowladda Masar hadda waxay bixisaa number aad u fiican waxay ballan qaaday sanad walba inay bixin doonto number intaas ka sii badan waxaan halkaas kula hadlay jaaliyadda Soomaaliyeed oo aan kula dardaarmay waliba khaasatan dhalinyarada aysan tahriibin aysan naftooda haligin annagana halkan aan uga shaqeyn doonno sidii ay u soo noqon lahaayeen aan shaqo abuur aan u sameyn lahayn ugu dambeyntii hawlaha bilateralka ah iyo wada hadalka iyo iskaashiga kulli la xiriira aan ka wada hadalnay waxay u baahan yihiin dabagal waxaan ku dardargelinayaa xukuumadda inay dabagasho oo kulli hawlahaas aan ka wada hadalnay dalka Masar in la dhaqan geliyo oo laga shaqeysiiyo waa mahadsantihiin